gablanto haddii aad tiri waad baqaysaa wuxuu ku jiray qolyaha dumarka iyo baastada soo kariya Soomaa waa ugu fiicnaa ninka islaamaha iskala joogay maska ka dilay muxuu ahaayeen waa ninka lacagtan raggan wadanka maanta ugu lacagta badan leh ugu raganimada badan leh ugu caruurta badan leh aan dhibiskil ma maqashay reer hebel meel ma wadago warnays kuma seegana de qodobo lagu heshiin waayo laga tagay meeshii yeelay baa jireydii adna wad ka warhaysaa maada og markaa ha kuwii wadanka u soo halgamay waxa uga muxuu ahaay nasiib batay waxday tii kulmiyana xalaal bay ahayd oo sax bay ahayd tanina waa qalad waa lagu dhimanaya tabriirinaya taa kulmiye ku mudaharaadayna waxaan la hadlayaa xirsi ilmaadeer baan hay hulaabini markaad qaawiso maxaa reebtigaad ula hadlaysaa wada jeedaa waa intaas laakiin mar walba hadla ma hadde ma jirto taasi ma jirto maxamed muraad marba siyaasiga ay isku fikir noqdaan buu isagu ekaada ma qabtaa fikirka ay dadku qabaan inuu marba siyaasiga markaa isku mowqifka noqoto adoo ekaata dadku waxay yaqaaneen marka nimka wadani ka hadlayo ma Cabdiraxmaan reerkooda jeeday sida laga dhigay waa sida ninka weyne burco joogay taageeraha xisbiga kulmiye difaaca madaxweynuhu badxaanas madaxweynaha ma difaaci systemka aniga aan samaystay waan difaaca assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada telefishinka horyaal iyo sidoo kale barnaamijka la hadal horyaal toddobaadkan barnaamijka la hadal horyaal waxa uu idinkaga imanayaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana inoogu martiya maayarkii hore ee degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad maayar ku soo dhawow telefishinka horyaal iyo sidoo kale barnaamijka la hadal horyaal waa dhawahay aadna waa mahadsantii waan kaaga mahadcelin annaguna waqtigaaga ugu horreyn haddii aynu barnaamijka bilowno bal ka waran xaaladda magaalada burco oo aad markii horena maayar ka ahayd iminkana muddo sanada aad kasii maqan tahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin waxaan isleeyahay dee magaalada burco dhibaato taallaa ma jirto awalna way iska deganeed haddana way iska degan tahay iyadoo ay sidaa tahay haddana dadkii hore waxay odhan jireen waa nin iyo waagi nin waliba xaalad gaara buu qaba laakiin xaaladda guud degmadan burco waqtigan xaadirkaa waxaan ku qiyaasi karaa inay xaalad iska degan tahay waayo haddii aynu nimaadno dhanka dhaqaalaha ee magaalada burco dhaqaalihii magaalada burco dadku aad iyo aad bay uga cabanayaan muddada aad joogtay iyo haatanba waxaa leeyahay waa magaalo bilaa dhaqaale ah waa magaalo bilaa wax soo saara dhanka dhaqaalaha ayay dadku aad uga cabanayaan bal arrimaha dhaqaalaha maadaama maayarka horena aad ahayd inta ogaalkaaga maxaad kala socotaa dhaqaaluhu waa laba meelood weeyaan baa laga eegayaa dhaqaalaha dadka ama wax soo saarka dadka iyo dhaqaalaha maartay magaalada soo gala ama caalami ahaan ha ka soo galo ama dowladda dhexe ha ka soo galo waqtiyadan haddaan eegno dhaqaalaha burco laba meelood oo inta badan dadka wax ka soo geli jireen waxaad moodaa in labadiiba ay iminka arrinkoodu aanu sidii hore ahayn xaggii xoolaha nool ee la iibsan jiray sacuudiga loo iibgeyn jiray waxay noqotay inay ku soo ururteen waqtiyada xajka iyo waqtiyadaasoo kale ama inta yaree la yidhahdo saambuuska ee rabadaanada la raro inta kale way iska yar tahay dadkana inta badan dhaqaalihiisu beerama leh waxay ku tiirsan yihiin ariga marka halkaa kulle xoogaa waa la dareensan yahay in maaragtay waxoogaa ka dhitinayso waxaa kaloo jira iyaduna dadkii qarbiga ku maqnaa oo nin waliba reerkooda ama qoyskooda wax u soo diri jiray oo halkaana intii uu dhacay xanuunkii maaragtay wadanka ama dunidaba saameeyey waxaad moodaa inay dhaqaalihii adduunku uu hoos u dhacay halkaana waxay la qabtaa dee caalamka iyo dunida kale ayay la qabtaa meelaha marka laga eego waa la odhan karaa waxoogaa baa ku jira in maaragtay inkamkii dadka soo gelayay uu yaraaday laakiin dee waa wuxuun wax u gaara maaha waa wax caalamkana ay la qabto somalilandna ay la qabto intaas baan ku gebagabeynaya dhaqaalaha kale xagga ama hay-ada ka yimaada ama xagga dowladda dhexe ka yimaada isagoo wax iska kooban oo inta badan dadku kuma tiirsana waa wuxuun dusha ka yimaada laakiin
intaa dadku ay ku tiirsanayeen waa wax iyagu ay maaragtay gacmahooda ku haystaan. marka waxaan isleeyahay waxoogaa dhitis waa jira inkastoo ilaahay subxaana watacaala aan laga dayranaynin oo aan isleeyahay dadku weli heer maaragtay laga yaxyeexo dhaqaalaha degmadu mari mahay. waayahay annagu kaaga mahad celinaa fasiraadda aad ka bixisay dhanka dhaqaalaha iyo halka uu ka soo galo burco dhaqaaluhu. inta badan dadka burco ku sugan waxay dhahdaan burco oo magaalo jeel oo kala dusha ka bannaan dhaqaalana aanu soo gelin waxna aanu ka bixin. bal arrintaa kelmadda ay isticmaaleen waa jeel dusha ka bannaan burco ma la qabtaa? maya waa suuqdi wey, waa kelmad suuqdi maaha kelmad qof weyn ku hadlo ma lama odhan karo waa jeel dusha ka bannaan. dadka way nool yihiin dhaqaalena waa soo galaa, laakiin waxaa la odhan karaa dhaqaalaha soo gala waa yari, ama waxaa la odhan karaa dhaqaalaha soo galaa hoos buu dhacay, laakiin waa jeel dusha ka bannaan. waa kelmad suuqdiya weye, maaha kelmad dee lagu cabiri karayo maanta degmada maaha. ha yidhaahdo halkaasi cilmiyan ha u baa dhaqaalaha degmada soo gala, ha yidhahdo halkaa iyo halkaa iyo halkaas bay ka waxaysanta, laakiin totally lama odhan karo dee waa jeel lama odhan karo. waa kelmad inagu ceeba weye. waayahay dhanka haddaynu nimaadno xeerka ismaamulka degmooyinka iyo gobollada oo golaha wakiiladana dhowaan la hor keenay, horena xeerkaasi wuu jiray, dadka burcana way tabayeen. adigu intii aad maayarka ahayd xeerkaasi waxaad ka hadasheen waktigii xukuumaddii madaxweyne muuse biixi, maxaa keenay inaad ka hadli weyda waktigii xukuumaddii madaxweyne siilaanyo oo xeerkaasi uu xeer jira ahaa, dadku reer burca ay tabayeen? maxaa keenay haddii aan su-aasha si toos u taabto inaad ka hadasho xukuumaddii madaxweyne biixi waktigii ay timi? maba jirtaba inaan ka hadlay waktigii xukuumaddan, warkaasi maba jiraba. warkan ka hadlay wuxuu 2014 bu 2014na dee muuse biixi ma joogin. waktiga aan geliyey idaacadaha geliyey aan kaga hadlayena 2013 bu, laakiin si publica intaan uga hadlay aan meel walba kaga hadlay aan dadka maaragtay usoo bandhigay waxay 2014. haddaad dib u eegto imika waxaad geli kartaa website-ka la yidhaahdo waxshansayga news haddaad geli kartaa. khudbaddii habeenkii November 2014 aan kaga hadlayay magaalada Oslo dalka Norway la yidhaahdo, dib u dhegeyso. xeerkaasaan kaga hadlayay oo dadka qurba joogtay reer burco aan u sheegay aan lahaa xeerkaasi waa xeer markaa dhibaato inagu haya. marka maba jirto inaan muuse biixi ama dowladdan muuse biixi maartay dee madaxweynaha ka yahay aad waqtigiisa ku soo beegtay ma jira siilaanyo jooga oo talinaya baan ka hadlayay. xeerkaa waayahay bulshada reer burco way tabayeen, adiguna waad ka hadli jirtay inta ogaalkaaga sida imika waad noo sheegtay waqti horena waad ka hadli jirtay. xeerkaa horta maxaa hortaagan? dee ragba waa ku raggeeda burco rag baa maanta jooga, dee mas-uuliyaddan raggaasay saarantay. anigu intii aan joogay intii aan ka hadli karay waan ka hadlay, meel fiican baan soo gaadhsiiyey. somalilandan fahamsiiyey in xeerkaasi u baahan yahay in maaragtay dib loo eego. maanta dee rag bay u taallaa, marka raggaa ay u taallo ayaa shaqadaa leh. inaan kana hadla oo aan maaragtay dee faahfaahiyan dee xaqba uma lihiyo, dee waa mas-uuliyad nin leeyahay ama mas-uuliyad dee ay leeyihiin raggii degmadan loo doortay ay leeyihiin, marka iyagay u taalla. aniga shaqadeeda ma oday magaalada miyaad ahayn maayar hore soo noqday miyaad ahayn? dadkaan la mid ahay dadweynaha. markaad leedahay aniga shaqadeeda maaha shaqadeeda maayar horaad ahayd, oday magaalada burcaabad hadda ku faantaa inaad tahay. maxaa kuu diiday intii odaynimo inaad qaadato xeerka aad dabada kala riixdo? maya anigu baanaa watay oo odayaal reer burcayo lama riixaynin. markan magaalada meeyarka ahaa, markan golaha deegaanka ahayn, annagaa wadano meel walba geynay. marka dee maantana cidda talada haysun bay bahasho u taallaa, wax aniga igu suntanoo aniga idaba ambuulan dee maaha. haddii fahankaaga intaa aad fahansan tahay aad fahansiiso oo aad kala shaqayso maayarka hadda jooga golihiisa deegaanka ah, maxaa kuu diidaya meel halkaa aan laga odhan karin halkaa far baa ku godan markaad diidan tahay? dee iyagay u taallaa inay yidhahaan xaggan marna ama halkeebaan ka bilowna ama dee maaragtay madaawadaad kordhin kartaa. markaa madaawadaad ka haanaysa xag baa ku maray. iyagay dee u taalla. haddii aniga wax weydiinayaan dee anigu waan joogaa magaalada, laakiin taas waa shaqo iyagu ay leeyihiin. ma ii baahan yihin aniga horta marka hore oo wax ma iga baahan yihin.
haddii waxay iga baahan yihin way ii iman karaan odhan karaan war halkaanu ka bilowna halkaad ka bilowday halkay maraysay dee sanad iyo bar baan kasii maqnaa iminka sanad iyo bilaan kasii maqnaa marka taasi waa hawl iyaga u taala inay ii baahan yihin inaanay ii baahnayn waa shaqo iyaga u taala laakiin anigu intan horrado dee u tegi maayo odhan maayo halkan ka qabta waa nin intaa iskala culus baan hay inaan iska horrado laakiin haddii aniga wax layga soo baahdo dee waan ku biirin karaa wixii aan aqoon ku dheerahay amba maxamuud dhagala meelaha qaarkood markay soo yar adkaato waa weydiin jiray war halkaa maxamuud sidaa tiri berigii ama halkaasaynu dhahnaa wuu maqli doonaa laakiin kuwan dee waa nasiibkooda hadday ii yimaadaan waxbaan ku biirin dee haddii kalena anigu horran maayo xafiiskooda ugu tegi maayo waayahay haddaynu u nimaadno intii aad maayarka degmada burco ahayd waxaa jiray dhul dan guuda oo aad u fara badan oo reer burco ay dhahdaan waa halkaa waa la fasaxay halkaa kale ganacsataa laga iibiyey halkaa kale cid gaaraa laga iibiyey horta ma jirtaa dhul dan guuda ama ha ahaadaan meelaha cayiman oo laisla garanayo ama ha ahaadaan meelaha aan la garanaya dhul dan guuda oo intii aad hogaamiyaha ka ahayd golaha deegaanka ee burco aad iibisay ma jirtaa meel la odhan jiray waxaa la odhan jiray sheekh bashiir hambol santarkii bay ahayd ama hanuunintii xaafaddaa sheekh bashiir wataa bakhaarada laga dhigay halkaas meel gacanta dowladda aan ku jirin bay ahayd dad shicibi manaafacaadsadaan golihii deegaanka degmada beryaha jooga waxay isla garteen in dadweynaha lagu wareejiyo oo suuq laga dhigo waana taa furanay dee suuqa ah oo suuqa laga dhigay taasi waa jirtay oo meeshii qofka quraama labada quraama saddex qoftay manaafacaadsanayeen ummad baa maanta ku manaafacaadsanaysa waana suuqa marka laysku suuqyada Soomaaliland la eego waa suuqa ugu quruxda badan leh dad shicib baa maanta ku shaqaysanaya suuq kale waa jiraan wasaaradii hawlaha guud waqtiga joogtay ayada laftigoodu waa suuqan sokay isaguna labada suuq waxa jiray isaguna suuq halkan dhex ah oo imika laga sameeyay isagana halka laga sameeyay oo aan dawladda gacanteeda ku jirin laakiin dad haysteen oo ku shaqaysanayeen meherado ahayd oo iyadana suuq public laga dhisay inahaas baan garanayaa oo si public loo soo bandhigay aan ahayn wax laga dhuumanayay ama wax meel madow lala galay aan ahayn si public golaha deegaanka u maamulay oo aniguna xubin kamid ah aan ahay wixii gaari aan jir garoonkii waxaad kaga warantaa bal meel garoonkii kubadda kolayga oo ahaa garoon ku yaalay bartanka suuqa magaalada burco bal garoonka ka war garoon muu ahayn wuxuu ahaa handball center buu waxa la oran jiray hanuunin baa la oran jiray waxaana ku yaalay meel xaafad bay afar xaafad bay magaaladu ahayd Sheekh Bashiir iyo Faarax Umar iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan saddex xaafadood bay marka xaafad kamid ah center waxa hanuunin waa la oran jiray laakiin ma ahayn handball centerku waa kaimka iskuulka Cabdulla Nuuri ana khaldamay markii hore handball center ku sheegay hanuunin baa la oran jiray laakiin hadda doonayso kubadii kolayga meesha lagu ciyaar jiray waa iskuulka la yiraahdo Cabdulla Nuuri suuqa bartankiisa ka way waxaad ka warantaa haddii aynu intaa kaga tagno maayarnimadii iyo burco arrimaha siyaasadda ee waqti xaadirkan Soomaaliland ka taagan adiga ahaan bal siday kula muuqdaan halka ay wax isla marayaan meel wanaagsan ma marayso meel laga dayriyana marmayso dadka waan arkay meelaha wax ku qorqoraan ama meelaha ka hadlee aan qaangaadhka ahayn oo ka dayrinaya meel xun bay maraysaa dagaal dhacaya balaaya dhacaya waxba ma jiraan meel wanaagsan bay maraysaa ummaddu waa taa nool shaqaysanaysa horu socod bay sameynaysaa qoonsimaadana way jirayaan wixii qoonsimaadana waxna dee waa laga heshiiyey oo horeen u soo maray oo ka soo talawnay dee waxna iminkay taagan yihiin waa la iska heshiinaya laakiin dhibaataba kama jirto wadankan maanta aynu joogno mandiqada ololeysa ayaynu ku dhexnaalaa marka kuwa kale eeg waxa ka dhacaya kiteenan bilaay ma qabto nimco iyo barwaaqaynu qabnaa iyo khayr way inta badan waxa ay xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumaddu ay isku hayaan doorashada ururada iyo tan madaxtooyada halka mucaaradku waxay ku doodayaan war doorashada madaxtooyada soo horeyso waqtigeedii bay dhacayaan xilliga uu komishanka doorashooyinka ka cayimay madaxweyne biixi oo dhawaan hadlay mar kale waxa uu ku celiyay in doorashada ururada ay soo horeyso arintaas gaab baa halka ka jiro mar hore mudaharaadaha hore u dhacay miyaan la oran karin way jiraanoo khilaaf ba'an baa jiro u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda markaad leedahay waxba ma jiraan wax dhibaato ma jiraan anigu waxaan aaminsanay wax dhibaato jir waxa la isku haya ma tanaa horeynaysa mise tanaa horeysana waa arin technical maaha arin dhigbax inagu ama dhibaato inagu maaha
teebaa soo horeynaysa taa maanta waxaan mayna la dhaafbo dee tii madaxtooyada waatan golaha guurtida ay kordhiyeen oo ay soo markaa soo diyaariyeen nimanka la yidhahdo commissionku oo yidhahdeen ma qaban karane 9 bilood baan ku qaban kareen golaha guurtida 2 sanadood bay kordhiyeen waxay la tahay taas meesha ka baxday kana soo horeynay kana soo horeeyay taas wayna dhaaftay hadda waxaynu diyaar u nahay oo maanta soo gabagaboobay madaxtaawashadii kunka qof tartankii ururada cusub waxa ku xigaya muxuu ahaayay tartankii ururada cidda u soo bixi doonta xisbiga u soo bixi doonta halka mushkiladu ka taagantay waxa weeye in maanta xisbi haysta marka la yiraahdo ururadan la tartamaysa kulli de markiiba waa laga yaabaa inay ku adkaato suurtagal mushkiladu waa halka ama inuu ka baqabo inuu haro oo xisbiyadan yar yar cusub ay meesha ka tuuraan oo xisbiyadii hore waaweynaa ururadan cusub aan jeeda oo xisbiyadii waaweynaa laga xiisa dhaco oo ay dadku dooran waayaan shaki halka waa iman karaa laakiin maanta teebaa soo horeynaysa iyo teebaa dambeynaysa meeshaba ka baxdayo madaxtooyadii waa la kordhiyay ta ururadana de qaanuunku siduu sheegay lama kordhin karo waa in doorasho toos loo galaa haddaan dib loogu noqonin qaanuunkii dee muxuu ahaayey doorashada xisbiyada mucaaradka oo hadlay waxay sheegeen in muddo kordhinta madaxweyne biixi loo sameeyay ay tahay mid xaaraana ta guurtooda samaysteenna ay tahay mid aan loo baahnayn iyaduna sidoo kale ay labadaba xaaraan ka dhigeen marka leedahay muddo kordhin baaba loo sameeyey madaxweynihii iyo xukuumaddiisii oo taa waa la dhaafay dee weli mucaaradka halkoodii lama dhaafin weli halka bay taagan yihiin marka la isciriiriyay dee ninbanan ciriiriyo dee wuxuu doona ku hadlaya laakiin taasi way tagtay ayaga laftigoodu waad ogeydo markii u horeysay commissionku ay yidhaahdeen 9 bilood baan ku qabanayna waa kuwa iyaga laftigoodu xisbiyada mucaaradka yidhi waa sax dee waa hambaliyeen waad maqlayso arkaysay marka ma aha layskuma haysto kordhini 2 sanadood baa malaa yar badan ururadan muxuu ahaayey iminka tartanka gelayana malaa halkan dhib baa laga yaabaa inay ka tirsadaan laakiin waa xaaraan cid odhan kartaa ma jirto golii guurtida meesha inoo fadhiyey weligiiba fadhiyey ayaa wax kordhiyey haddii la leeyahay maxaa 9 bilood bay hayda loogu daray sanadii 3 bilood loogu daray taasi waa la weydiin karaa guurtada maxaa ugu darteen waa la odhan karaa iyagii baa leeyahay bas xaaraan ay u fadhiyaan bay kuwii ku daray haddii xaaraan fadhiyaan markii loo dhiibayay gacanta loo gelinayay 9 bilood ay ilhaayeen waa sax maxay markaa xisbiyada mucaaradka ay odhan waayeen xaaraan baatiin 9 bilood halka laga soo commissionka uu soo berbergariyay commissionku maxay odhan halkaas ay inoogu egtay 9 bilood ha gudbinina guurtada xaaraan maxay saa odhan waay laakiin markii 2 sanadood laga dhigay bay yiraahdeen waa sidan anu sax uma haysto in la yiraahdo guurtada waxay soo saartay wax xaaraan in hadalka laga yar xishoodaa fiican odayaal meesha inoo fadhiyo in badanna ina kala furtay ina kala fardaamiyay way qofka bini'aadamkana maalin way ka weecan karaysa hatta haday ka weecato in la yiraahdo wax xaaraan waxay soo saareen aniga ilama habboona way yahay dhawaan waxay qabteen mar labaadna ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradku hadiiba sida sharciga loo soo noqon waayo ay qabanayaan mudaharaada aan hadhiya habeen la qaban doono oo aan kala joogsi lahayn hore mudaharaaday u qabteen oo dalka ka dhacay adiga sidee kula muuqdaan mudaharaadada ay xisbiyada mucaaradku horena ugu baaqeen iminkana ay dhigayaan su'aasha ka horeysa waxa weeye maxaa kii hore laga faa'iiday mudaharaadkii hore ee dhacay maxaa laga faa'iiday soo lagama faa'iidin inan yar oo aynu dhalay oo dhintay ama inan yar oo aynu dhalay oo xabad ku dhacday ama hablaheena soo inta askari ay xaabisay dabeedna jeel lagu guray soo inta lagama faa'iidin marka la leeyahay haddana ku celiya ma mar labaad dhintaba macnaheedu taas loo jeedaa miyaa anigu waxaan aaminsanahay wada saxan in lagu raadiyo wixii aad doonayso laakiin mudaharaad ku helmaysid waayo mudaharaadkan dadkeenu ma yaqaanin mise ma yaqaanin su'aashaas ay isweydiin qalad ba marka mudaharaadku ya ma qalad ba inay ku baaqaan dhigaan waxa mudaharaad leeyahay waayo sidoo qaladkeen ku sheegaya inagu ma naqaan salo mudaharaad horta imika nimankan dimuqraadiyadda sheeganaya ee reer Yurub iyo wixii lamid iyo Mareykan iyo qof baa kaliya mudaharaad iyo intuu boorkiisa qaato ujeedadiisa ku qoraabo halka la maraya ama ummad baad mudaharaad soo bilayskuna hareeruhu ka geliyaan amnigooda ayay muxuu ahaayay ilaalinayaan oo iyaguna shucuurtoodii waxay doonayeen waxay diideen bay muujineen inagu taamanahay may gaariga halka taagan baa la jabinayaayo way sameeyeen boodar madaxa laga jabinayaayo mudane adigoo wad dhawaan way sameysteen boodar garamaan bay sameysteen dhawaan mudaharaadka ugu dambeeyay xisbiyada mucaaradka dhigan garamaanna way sameysteen boodarna way sameysteen ay ku soo bandhigayaan waxa ay doonayaan waa sax laakiin halkee baa la yiri ka mudaharaada miyaan lagu oranin meelihiina iyo xafiisyadiina ka mudaharaada ma suuqa laga mudaharaadaya anigu totally mudaharaadka oo ka soo horjeeda
waxaan khasaare ahayna ma keeno mudaharaadka inan yaroo naga dhintay inan yaroo waayo kulmiye waqtigiisa wuu mudaharaaday wuxuu ku mudaharaaday xukuumaddii markaa ka horreysay madaxweyne daahir yaale in badan buu ku mudaharaaday ma waxaad leedahay tii kulmiyana xalaal bay ahayd oo sax bay ahayd tanina waa qalado waa lagu dhimanaya taa kulmiye ku mudaharaadayna taa kulmiye ku mudaharaaday daahir yaalena waa sax mali khasaarun bay keentay tan oo kale un bay ahayd tan maanta leey mudaharaad baa lagu baaqi doonaa ama kii hore laga hadlayana totalmente waa qalad baan u arkaa mudaharaad baan sidiisaba diidanahay maaha ka mucaaradkan diidanay maaha waqtigaadu ma mudaharaaday miya kuma jirin dadkii mudaharaaday magaaladana waan joogay marka ma la odhan karaa mudaharaadku isagoo ka baqaabay tago oo ilaa waa kuwii hogaamiyaasha xisbigaaga mudaharaaday ma goblanto sax fulahooyadii ma goblanto haddii aad tidhi waad baqaysaa fulahooyadii ma goblanto raggii geesiyaasha dhintee 50 kun oo inan baa waddankan usoo dhintay raggii geesiyaasha ay rag ka tegey meeye maxamed cali mee ina koosaar mee calan salebaan mee dhintadee raggan meelahan sii taagtaagnin nin dee hore u dhiman waayo wadkii aanu gelin iyo dee fulay aan farantaba tegin iyo meel rag isku hayaba tegin waa labada wixii qaangaadhka waqtiga markan waxaad leedahay ka tago gaas daqiiqii iyo gaas ordoonkii labadaasoo aan dagaal ku jirin marka waxaad leedahay anigu ina muraadahaan kama qayb gala meelaha mudaharaadada lagu baaqo anigu dee mudaharaadka sax uma aqaani xalna uma aqaani saxna uma aqaani waxaan u aqaanaa waxaan doonaya inaan nabad ku doono nabadgelyo ku doono taasaan u aqaana dhowaan wax ka dhacay magaalada Burco aan ku sugannahay shir ay qabsadeen mid ka mid ah beelaha dega Somaliland shirkaasi muddo socday qodobbaa ka soo baxay balinta ogaalkaaga shirka maxaad kala socotaa qodobadii ka soo baxay sidee kula muuqdaan qodobada ka soo baxay horta shirka waa diidmays beel kasta reer Somaliland shir bay qabsatay lamana xaraantinimada lama oran karo shir maxaa u qabsatay lama oran karo laakiin waxa la isweydiinaya maxaa ka soo baxay anigu qodobada ka soo baxayna waxaan isleeyahay waa qodobadii fadal dheerta lagu qancinayay oo fadal dheerta halka meeshan waxa isugu tagay waxa laga yaabaa dad badan oo kala ujeedo ah ama kala caqli ah ama kala garasho ah oo ninba si wax u arkayo inanka yar maanta dhalinyarada 20 jirka ama 30 jirka iyo ninka weyne 50 jirka 80 jirka 70 jirka 60 jirka isku waaye may arkin marka waxaan u arkaa qodobadan halkan imka laga soo saaray fadal dheertana si ay isu taagto oo dee lagu joojiyadii maxaa lagu joojinaya dadkan qaar baa halkan tuban dee hadday doonaan hadday nagu kiciya marka kuwaana wax lagu qanciyo waa in la helaa shirkana wax laga soo saaro waa in la helaa waxaan u arkayaa 7 qodob dadkii meesha wada joogay la isugu keenay oo meel dhexa oo aan la doonayay dadka intani kala firdhin inta meesha waad arkaysayo dee qaar reer ka tirsan ba meel walba ka qaylinayay laha kuma jirnayo waa ka marka intan halkan wada joogta qodobo aan iyaga kala firdhin meesha laga soo saara bay ila muuqata laakiin qodobadii wax ku oolka ahaa waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan 7 waayahay qodobadaas waxa ay la dul yaalaan oo yiraahdeen toos waxaan ugu daynaa madaxweyne biixi oo nu eegnaa jawaabtiisa markaad leedahay inta halkan isugu timi baa lagu ilaalinayay iyagii yaani ku kala firdhin soo kuwa madaxweynaha toos ku diray qodobadaas aday kula yaalaan halkaas dee 7 qodob ku heshiiyey laakiin qodobo kale aan lagu heshiin baa yaalay wax ma maqashay reer hebel meel ma wadago warna iskuma seegana dee qodobo kale lagu heshiin waayo laga tagay meesha yaalay baa jireydii adna waad ka waraysaa maada og markaa waxaan ogaan weynay maxaanu kala nahay dadka meesha ku jiray maxaanu kala nahay kaayagana way ogin koodana way ogin marka qaar kale oo kuwan ka dhaanjarsan oo dee la isku raaci waayo la dhigay baa jira qaar kale oo kuwan ka sahlan oo la isku waafaqsan yahay baa jira oo aan ku doonno waxaanu doonayno nabadgelyo ku doon ala xab lagu helmay xabadna waan soo aragnay waxba lagu helmay mid sookayeen soo galay mid shisheeyeen galay waxba lagu helmay laakiin saldhiga shirkaas wuxuu ahaa waxaan doonayno nabad ku helo qodobka la isku waafaqsan yahay waa qodobka way haddii aan u soo noqono adiga maxamed muraadahan waad hadashaa markaad hadasho aad jeediso ama aad warbaahinta la hadasho waxaad jeedisaa eedayn cidaad mutaad u jeedisay haddana raali gelin baad eedaynta ka daba keenta ina muraadma marka hore uu saxan yahay mise markan dambe ma jirto taasi ma jirto waa laga yaabaa inaan hadlo hadalkayga la diido anu been kama hadlo muxuu ahaay tamalluqana ma aqaani hadalkayga in cid ku raali geliyo ama xukuumadda haato mucaarad haato waa laga yaabaa mar iyo laba inaad khaldami karto qof bini aadanaati ya warujuucu ila alxaqi fadiila inaad markaad khaldanto khaladkaa ka soo noqotana waa ragannimo ma ceeb maaha oo inaad tiraa war ereygaa waan ku khaldamay laakiin mar walba hadla ma haddee ma jirto taasi ma jirto waa laga yaabaa mar iyo laba inaan khaldamo waa suurtagal milyan jeer ba siyaasiyiintu khaldamayo iyo mas-uuliyiintu
anigu waxaan isle waan ugu khalad yarahay inta idaacada ku jirtay waan ugu raali gelin badan tahay maya mar yalla baa laga heli karaa inuu war waxaas waa khalad laakiin sida aan u hadlo ama sida aan ragga u wada hadallo iyo wariga raali ah hebelow waa isma laha waa laga yaabaa mar laba saddex haday ugu badato niman aan dee isku khaldanay iyaguna inay raali geliyaan aan raali geliy laakiin raali gelin anigu dhinacaya ka socotaa ma jirto waa laga yaabaa dee inaan qofka isjiidhno ama mas-uul ha ahaada ama yuu ahaanba somaad fahmin laakiin inaad waxaad adigu aad khalad u aragto aad ka hadhowto dib uga soo noqotaa raganimaday ka mid tahay inaad waxaad khalad u aragto ku dheganaato baa nacasnimo ah taasi ceeb ma leh hadalka anigu aan hadlayana hadal munaafaqadeed ma aha waxa waaqacayaal baan ka hadlaa run baan ka hadlaa been kama hadlo runtana dadka inta badan ma jecla waayo maanta waxaa kaa farxinayaad jeceshahay wax maanta aad diidan tahay dee inaan ku hadlo ma jecleyd hadee jeer intan dadka isku yar dhaafsanaya siyaasiyiinta waxa weeye tamalluq iyo salsalaaxa ma aqaani midkaas waad khalad baan idhahay midkaasna waa sax baan idhaha way waxa leeyahay marka uu hadlo hadalkiisu waxa uu sameeyaa kala kaxayn iyo kicin bulsho oo bulshada ku kala kaxeeya hadalka uu hadlay adigu ma muuqataa ma isu aragtay hadalkaad hadashaa inuu xanaf leeyahay maya ma jiraan bulshada kama hadlo bulshadana lama hadla anigu laakiin waxaan ka hadlaa siyaasadda waddanka taal siyaasaddaadi ba xanaf keenaysa siyaasadda waddanka taal baa reer laga dhigaya iminka markan kulmiye ka hadlayo kulmiye ma reerkaygan u jeeda markan iminka waddani ka hadlayo ma cabdiraxmaan reerkooda u jeeda sida laga dhigaya waa sida looga qaylinayaan waxa weeye war waxaan la hadlayaa cabdiraxmaan waxaan la hadlayaa ina cali waraabe waxaan la hadlayaa xirsi ilmaadeer baan markan xisbigan wadani iyo xirsi ka hadlayo ma reer abtigee baan la hadlay inta laga hadlaya waa intaa maxamedow wadani baa soo qaday war wadani iyo abtiyaasha waa kala nooc wadani waa xisbiga gudoomiyaha ka yahay ninkaan ilmaadeerkana marka waxba yaan bahasha hayhulaabini markaad qaawiso maxaa reer abtigaad ula hadlaysaa wada jeedaa waa intaas raabtigeena weligay ma maagintay oo waxaan u aqaanaa madaxaygii mijahaygo meesha ka soo jeedaan weligeyna ma maagina maayo laakiin siyaasadda wadani baan ka hadlaa siyaasadda dalka taalaan ka hadlaa tayna cali waraabaan ka hadlaa xataa ta kulmiyaan ka hadlaa ta dowladdan maagaa wasiiradan maagaa haddaan doono u sheegaa wixii saxayna waxaas waa khalad waxaasna waa sax marka dee war reerka iyo xisbigu waa kala nooc way dadka qaar baa waxay qabaan maxamed muraad marba siyaasiga ay isku fikir noqdaan buu isagu u ekaadaa ma qabtaa fikirka ay dadku qabaan inuu marba siyaasiga markaa isku mowqifka noqoto adoo ekaataba dadku waxay yaqaaneen nimaan waxba maqlin oo fulaxantiisa ma mooga sidan layma yaqaanaad sheegayso laakiin dadku ilaa maalintan meeyarkaa waxay i yaqaaneen nin madax adag aan waxba maqlin waana igu yidhaahdaan ma qariyaan laakiin nin tamalluqo marba nin isku beego isu ekeysiya reer burcay ma yaqaanin markaa hargeysaad kala timi marka ma dadku ma kaligi taliya ku yaqaanaa dadku waxay aan wadnaa wax maqal way sugay xanteeda waa laakiin waa xaqdaro oo waxaan ahay ninka dadka ugu dhageysiga badan mas'uuliyiinta hatta al-ajaayis baan dhageystaa oo dhageysan jiray laakiin waa hadal duulay in muraad wax ma maqlo oo waa madax adag ah waan isku ogahay midkaa in dadku inay igu yiraahdaan laakiin waa nabar xaqdaro baan isleeyahay ruwaaya haddii aan u nimaadno dhanka horta adigu waxaad ka tirsanayd halgankii SNM baad ku jirtay waad ka tirsanayd horta halgankii SNM halkeed kaga jirtay waqtigiisii ka wala soo dhaafay ka waqtigiisii baab buuha ilaahay furay mar dhamaaday 91 buu dhamaaday maalintii uu dhamaadayna dee macallin baan hayo shaqadaydii baan qabsaday guutadee baad ku jirtay bal guutadaad ku jirtay iyo halkay ka hawlgali jirtay waxa imika igada waxa warkaasi waqtigiisii dhamaaday qad khalad dadka qaar waxay aaminsan inay muraad waxay leeyihiin guutana kuma jirin waqtina halganka kama soo qayb galin taaba ka dhig no problem wana ku faanayaba ma sheegana maayo kuna faanan maayo sababtu maxay dee waqtigaas uu tagay kamana sheekay anigu waxaan qabtay halkaasaan dadka dee ama ha laygu sheego fule ama ha laygu sheego niman kuwa jirin ba halganka yeelko midaan sheeganaya ma waayo sababa aan uga heebaan u sheeganay marka wixii la doonay hal cabdo marka dadka waxa sheegaysaa fikirkii ahaa dadku saddex boo qaybinayaan waxay leeyihiin halganku waxa uu ahaa mid dagaalama mid dhaqaale ku ururiyay mid dumarka marka cuntada sameeyay kimista sameeyay u sii qaada ragga dagaalka marka saddexda keebad ku jirta kaasoo ugu fiicnaa waxa ugu fiicnaa ninka islaamada iskala joogay maska ka dilay muxuu ahaay cuntada ugu geeyay ciidanka kale waa ninka lacagtan raggan wadanka maanta ugu lacagta badan leh ugu raganimada badan leh ugu caruurta badan leh aan dhibiskin waa very good very bad waa isku lacag keeway kaas marka kuwii wadanka u soo halgamay
waxa uga muxuu ahaa nasiib batay kuwii xamar ka yimi iyo koonfur ka yimi marka dhib ma leh haddii lagugu sheegay in muraad wuxuu ku jiray qolyaha dumarka iyo baastada soo kariya soo ma sacan kama taadaas ku tilmaamay baan kuma tilmaamay waadi qaranaysa anu kuma tilmaamay way haddii aanu nimaadno dhanka inoo gabagaba barnaamijkeena ku soo dhow waqtigu naga gaaray haddii aanu nimaadno waqti xaadirkan iyo magaalada Burco barintii fag ogaalkaaga ah golaha deegaanku waxa ay joogaan muddo sanad iyo dhowr bilooda adiguna intaasaad ka sii maqan tahay maxaad oran kartaa raggaasi way qabteen oo way muuqdaan laamiyada Burco waa aragnaa waliba qaar ku anigu aan ka tagay GBLG oo anigu aan saxay qaar kale oo ay ku dareeno waa jiraan oo ay sameeyeen kulli iskuulada wax ku dareen waxba anagan nooma sheegin laakiin waan dareemayaa in kuwa ay idaacadaha ka arkay waan moodaya inaan dareemayay laakiin inta imika ugu muuqanaysa ay bulshada u qabteen baabuur cusubna oo arkayay iyo muxuu ahaye macadaad laamiyada magaalada gudaheeda noo arkaya intaa sanadka iyo 4 bilood miya ay joogeen laakiin dee muddo u hadhayo maanta lama qiyaas karayo inay wax qabteen inaan waxba qabin dee waa early ba wali la jooga marka muddo u hadhay waa la eegay la sii dinaya 2 years ba qofka la eegaa in uu maartay dee wax qabtay kale 3 after 3 years after 2 years way soo baxaysaa way hay xisbiga kulmiyaad ka tirsanta xisbiga kulmiye xubin baad ka tahay oo golaha dhaxad ku jirta ma taageeraad ka tahay ma rajaad qabtaay xil baad ka haysaa xisbiga dhexdiisa xisbiga kulmiye maxaad ka tahay xisbiga kulmiye waxaan gaaray inaan golaha dhaxan ahaa oo golaha dhaxan ku jiray intii aan meeyarka ahaa maanta laakiin xil aan u hayaa ma jirto waa laga yaabaa dee saaxiibo kale ma lihi taageerada maanta taageerad ka kulmiye saaxiibo kale dee maanta la saaxiibay baan jirin laakiin hadda golaha dhaxan kuma jiro laakiin dee golaha dhaxan soo maray intii aan xilka hayay 9 sanadood maanta laakiin xilka ma hayo way filashada rajadaada maadaama sanadnaad ka sii maqantay golihii deegaanka ee degmada Burco rajadaada ma xil sugaa tahay oo maanta waxbaad hawlad dhaqdhaqaajisatay mise wali rajo ma qabtid oo xisbiga kulmiye taageero baad ka sii ahaan doontaa iyo madaxweyne Muuse Biixi qof difaaca horta xil aan madaxweynaha u raadsaday ma jiro walina madaxweynaha kuma odhanin xilkaasan ka doonaya iyo meel magaco midna kuma odhanin nin weyn laakiin dee Burco lagu ogyahay baan ahayo dee xisbiguna tirsanayo baan ahay laakiin midaan imika doonay ma jirto dee saaxiibo cusubna wali maan samaysan waaba iska waqti dee ururada ay tartamayaan oo dee laga yaabo in dee ururo xisbi u guuro cusub ay yimaadaan suurtagal ay tahay marka madaxweynahana xil ma weydiisan cid uma dirana ma madaxweynaha iigu taga laakiin dee nin weyn Burco lagu ogyahay baan ahayo xisbigana madax ka soo noqday oo wadankana ka soo taliyay oo dee lagu xisaabtamay marka ninka weyn Burco joogay taageeraha xisbiga kulmiye difaaca madaxweynuhu badhaanaysa madaxweynaha ma difaaci systemka aniga aan samaystay baan difaaca fahan horta marka hore madaxweynaha ma difaaco laakiin systemkan anigu samaystay aan kamid ahaa raggii samaystay baan difaacayaa dee oo doorashadii Muuse Biixi ku doortay baan dee difaacaya Muuse Biixi daan difaaci ma shakhsiyadiisa waa madaxweyne oo tamaanba la caayo wata la maagayo maxaa loo caaya dee leegama maqal laakiin systemkii aan kamid ka ahaa raggii samaystay aan kamid ka baan difaaca ceebna ma hadee daawadeyntaas waxaa noogu dhamaaday barnaamijka la hadal horyaal toddobaadkan idinka imanay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxaana inoogu martay maayarkii hore ee degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad aad iyo aad baan waqtigaaga maayarkaaga mahad celinaa siisay